gabadha ra'iisul wasaaraha ka ah dalka Norway ayaa ku mashquushay oo iska ciyaartay ciyaarta geemka ee loo yaqaano Pokemon xilli ay ka qayb gashay fadhi degdeg ah oo u yeeshay baarlamaanka waddankeedu iyadoo ay hore u jirtay in xubin ka tirsan golaheeda wasiiraduna uu geemka ku ciyaaray fadhi xukuumaddu lahayd laakiin xilligan waxaaba yimid waqtigii gabadha ra'iisul wasaaraha waxaana saxaafaddu qabatay sawir taariikhda geli doona oo muujinaya iyadoo ra'iisul wasaare Arnold Sorber ay si rasmi ah fadhiga baarlamaanka dhexdiisa ugu ciyaarayso geemka loo yaqaano Pokemon kowdii bisha November sanadkan 2016 waxaana taa ku horeysay in safar ay ku tagi lahayd dalka dibadiisa uu dib ugu dhacay sababo la xiriira inay geemka ciyaartiisa ka foqowday laakiin waxa haatan ka dhacay xarunta baarlamaanku oo arrin ka soo noqotay saaxadda siyaasadda ee heerka gaarsiisan ee dalka Norway iyadoo bishii August ee sanadkii 2015 la arkayay hogaamiyaha xisbiga liberaalka gabadha lagu magacaabo Triniska Grandi oo ciyaaraysa geemkaasi laftiisa xilli ay ka qayb gashay kulan adag oo lagaga hadlayay amniga guud ee qaranka Norway